السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad si toos ah inooga daawanayso waa channelka YouTube-ka aynu ku leenahay Macallin Muuse Official Channel. sidoo kale waxaad naga daawan kartaa page-keena Facebook-ga. sidoo kale waxaad naga daawan kartaa baraha bulshada aynu ku leenahay sida TikTok-ga iyo meel walba oo baraha bulshada ah. magacaygu waa Macallin Muuse. haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan ama channelka ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe-sa hanaga bakhiilin. sidoo kale in aad gambaleelka furataa si uu ku soo gaaro barnaamijyadeena. sidoo kale ha hilmaamin in aad la wadaagtaa barnaamijyada aan soo dhigno asxaabtaada inta uusan gaarin gaarsiisaane addaalu cala alkhayri ka faacilihi. qofka dadka khayrka tusaana inuu yahay qof sameeyey oo kale yaani ka hoos bixin. ama bacdu intaasi kadib maanta waxa weeyaan waa barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay waa jawaabihiina waaye. in badan waxaadna soo weydiisaan su'aalo macallin waxaan doonayaa inaad riyo ii fasirto macallin waxa aan doonayaa in haddaba maanta waxaan akhrin doonaa insha Allah ta'ala commentiyadiina aniga oo mid isu dul taagi doona idinkagana jawaabi doona biidni al-baari jalla wa ala. waxa kamid ah dadka su'aalaha na soo weydiiyay ee naga soo weydiiyay commentiga gabadha magaceedu uu yahay Queen Berlula official qofka wato waxa uu yiri Macallin Muuse waxa aan rabaa inaa ii soo fasirto riyooyinkan maadaama aan fursad kugu waayay. waxa ay leedahay gabarta waxay dhahday طبعا waxay ka wadaa gabar ayaa riyootay oo riyo u soo dhiibatay marka waxay rabtaa riyada in loo fasiro. waxay leedahay marka gabarta waxay dhahday waxaan ku riyooday anoo gabar ah oo la ii guursan oo ay bursanayo oo i qaniinayo. bimacnaa waxa weeyaan gabadh iyada oo iskaabula oo aan xaas ahayn ayaa waxay ku riyootay iyada oo ay bursanayo oo uu qaniinayo. eegaasi haddii uu yahay ay madow waxa weeyaan oo qaniinay waxaa lagu fasiraa oo tacbiirkeeda iyo fasirkeeda iyo ta'wiilkeedu uu yahay in lala maagan yahay dhibkaasna uu yahay sixir. gabadhaan dhibka lala maagan yahay inuu yahay dhib sixir ah. eega madow waxa wato inta badan waa masjin shaytaan waaye. marka shaytaankana waxa uu la shaqeeyaa oo khaadim uu yahay saaxirka. marka saaxirka iyo shaytaanka waxa ka dhaxeeya waa wada shaqeen. gabadha marka haddii ay ku riyooto ay madow eega haddii kalarkiisu uu madow yahay oo uu qaniino bimacnaa waxa weeyaan gabadhaas sixirka waa uu haleelay waa uu gaari waaye. ilaahi subxaanahu wa tacaala ha kugu shartiro. waxay kaloo leedahay isla gabadhii ayaa su-aasha wadata number 2 waxay leedahay isla gabadhii ayaa waxay dhahday waxaan ku riyooday ayada oo la iqabin waxaan ku riyooday guri wada baranbara ah. guriga dhan oo wada baranbara ah ku riyooday. guriga marka uu wada baranbara yahay haddii aad ku riyooto baranbarada waxaa lagu tiriyaa gabar faasiqad ah. gabar waxaa saaxiib la tahay oo aad naftaada la socotaa oo asxaab aad tihiin waa gabar faasiqad ah oo taacada ilaahay ka baxsan oo aan taqwadu ay ku yartahay alla ka cabsiga uu ku yar yahay. taas ayaa lagu macnayaa baranbarada wax fiican maaha waa saaxiib xun waaye. saaxiib sayyi ay dhahaan saaxiib xun weeyaan. marka baranbaraduna waa qof xun ama saaxiib xun ayaa lagu macnayaa. waxa kaloo jirto waa isla gabadhii numberka 3 waxay leedahay isla gabadhii waaye waa lay guursaday ayay dhahday intaan toddobaadkii ku jiray ayaan haddana waxaan ku riyooday ilkaha hoose oo tin iiga duuban tahay anna aan iska bibixinayo. gabadhaan waxay ku riyootay iyada oo ilkaha tin ay kaga duuban tahay. bimacnaa waxaa la cabsiiyey ama la cunsiiyey sixir ma'kuul ah ama mashruub ah ayaa lagu macneeyaa. haddii afkaaga tin iyo wax saasoo kale adoo ka soo jiidayo ka soo bixinayo ama cunayo haddii aad ku riyooto ama ka soo jiidayo waa sixir. sixirkaasna waa sixirka cuntada lagugu daray ama biyaha lagugu daray. ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ku xafido. isla 4 waxay leedahay gabadhaani waa isla gabadhii waxa ay dhahday kadib waa xanuunsaday wax yar marka lay qabay ilaa haddana waan xanuunsanahay. ayadoo sidaa jirto ayaan waxaan ku riyooday anoo xanuunsan oo lay qabo weli aabbahay oo lacag badan isiinaa madaxana iga dhunkanaa. iisoo fasir sheeko. xanuunkana waa xanuunkii sixirka ahaa eegii qaniinay
baranbaradii dhibaatadii dadkii ay ku sameeyeen oo dhan ayaa xanuunkaani sababtiisu ay tahay. Aabbahaaga lacagta ku siinayana waa aabbaha oo ku fangareynayo, ku qarash gareynayo, doonayana caafimaadkaaga lacag fara badanna ku bixinayo waaye lacagta. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiinaynaa caafimaad taama insha allah. mar walbana ha hilmaamin inaad akhrisataa adkaarta subaxda la akhristo adkaaru sabaax, sidoo kale galabtii haddii ilaahay nafta uu kuga simo adkaarul masaa inaad akhrisataa ha hilmaamin, si sharqabayaasha ilaahay uu kaaga haayo. haddii kale aadan quraan iyo waxba aadan akhrisanin, qof walba insi iyo shaydaan waa ay ku dhibaateynayaan. gabadhaasi haddaan aan uga gudbo marka jawaabteeda intaas, wiil la yidhaahdo maxamed cabdi ayaa waxa uu nala wadaagay oo uu soo qoray, macalin waxa aan ku riyooday 2 riyo oo kale ah. waxaan ku riyooday habeenkii anoo joogo iskuulka oo arday kale qalin isku dagaaleyno. cunugan riyadiisa waxa weeyaan riyadan oo kale waa qarow waaye, laakiin waxay u badan tahay inuu yahay wiil fooda badan oo iskuulka markii uu joogo uu dagaal badan yahay. qof walbana wixii maalintii uu soo sameeyo habeenkii ku riyoodaa. marka riyada noocan oo kale waxaa la yiraahdaa waa xadiithu nafs, naftaadu waxay maanta qabatay inaad habeenkii ku riyoodo waa wax dabiici ah insaanka basharka oo ka suuroobo waaye. mid labaad wuxuu leeyahay waxaan kaloo ku riyooday salaada subax kadib hooyo adeeg ii dirtay la orday oo roob weyn da'ayo, kadib waxaa dhacayo anoo marayo meel xabad ka dhacayso, kadibna wado kale anoo marayo ayaa nin tuute wato oo ordayo ayaa arkayaa, kadib gacmaha kor u taagayo, qoorta bistoolad iga dhufanaya, kadib aan shahaadanayo. waa isla sidii oo kale, waa waxyaabaha maalin walba uu arko waaye. wuxuu arkaa askari tuuteysan, askari qoray wato, wixii maalintii uu arkay unbuu ku riyooday. wax kale oo dheeraad ah iyo tafsiir kale oo ay leedahay riyadaani ma lahan. waa qof wixii uu ku riyooday, wixii maalintii uu soo arkay oo riyo habeenkii uu ku arkay oo keliya waaye. wax kale macno kale ay samaynayso ma jirto riyadan iyada ah. wuxuu leeyahay waxaa kaloo jirto qof baa wuxuu leeyahay meeqa suuradood ayaan aqrinaya. macnaha waxa weeye markii masal caashiqa markii uu qabto meeqa suurad ayaan aqrinaya. waxaad aqrinaysa waxa weeyaan sida kiliibkaba ku xusan suuratul baqara, suuratu yuusuf, suuratu dukhaan iyo suuratu almulk. 4 suurad ayaad daa'imaysaa oo aad aqrinaysaa maalin iyo habeen. khaasatan suuratul baqara aad u aqrinaysaa insha allah, kadibna aad ayaad u fiicnaanaysaa. بارك الله فيكم. haddaan commentigaas ama commentiyadaas intaas aan ugu gudbo, 2 comment ama 3 comment kale haddii aan soo qabto oo aan ku daro, waxay leeyihiin assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday 2 riyo aan ilaawi la'ahay. wuxuu qofkani waa daahir cadde waaye. wuxuu leeyahay daahir cadde, assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday 2 riyo aan ilaawi la'ahay. midda koowaad waxa waaye aniga oo sawjkeyga u keenay raashin timo ka buuxaan, isna uu ku cunayo sidooda, anigana aan ka bixbixinayo afkiisa gar weyn oo tin jilicsan lehna uu ku taalo, sida runtane gar ma lahan sawjkeyga. midda labaad, inkastoo aan mar hore ku riyooday, waxay ahayd aniga oo cunayo rooti, anna liqi la'ahay, tubinna la'ahay. jawaab sheekhow waa ii muhiim, ilaahay ha ku barakeeyo. riyadan hadda ka horna waan soo sheegay, isla muuqaalkaana bilowgiisii waan ku soo xusnay. waxa weeyaan qofka marka uu ku riyoodaan dhahnay isaga oo tin cunaya ama la cunsiinayo waa la sixrayaa. bimacnaa hadda laga yaabay gabadhaani inay ninkeeda iyadoon ogeyn ninkeeda inay sixirto. waa wax dhici kara maadaama iyada cuntada ee u keentay tintii uu cunayo inay ka sii siibayso, iyada oon ogeyn oon raalli ka ahayna laga yaabaa inay sixirka iyada gacanteeda ay ku siisay ku sixirtay ninkeedii, laakiin iyadana aanay ogeyn. cuntadii loogu daray ninka sixirka, laakiin qofka quudinaya ee siinaya waa iyada waaye. mas-uuliyadda ayay saaran tahay, iyaday saaran tahay. marka arrintaas iyada ahna waxa weeyaan in laga digtoonaadaa fiican. maxaa yeelay dadku badanaa inta badan ma oga calaamadaha sixirka lagu garto. waxaa ka mid ah mas madow oo ku cirsanayo, ey madow oo ku bursanayo,
sida mataqaanaa tintaan afkaaga ka soo baxayso kale inay ka daataan maxaan ku raahdaa injir inay korkaaga ay ka daadato iyo dharkaaga inay ka daadato waxyaabahaas oo dhan xasadka isha sixirka ayaa lagu macneeyaa oo ay ka walax yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hana amaansado waxa ugu dambeyn commentiga ugu dambeeya aan soo qaadanayo waxa ay nooga yimid su'aashan ay nooga timid gabar la yiraahdo magaceeda Jamiilo Maxamed waxa ay leedahay macallin Muuse waxa aan ku riyooday dhowr jeer masas kala nooc ah masas dhowr nooc ah ayaan ku riyooday masaska noocyadiisa way kala duwan yihiin maska madowga ugu daran maska haddii uu yahay mas madow waa maska ugu daran ee lagu riyoodo waaye waana qof cadow ah cadowtinimadiisu ay aad u daran tahay xaasid ah waaye maska madow waxa kale oo uu noqdaa sixirna waa uu noqdaa shaytaan sixir loo soo dhiibtayna wuu noqdaa khaadimu sixir maska marka uu yahay mas cad waa qof adiga saaxiib kula ah laakiin munaafiq ah afkaan hore waxa weeyaan waa uu ku maceynaya waa uu ku dhoola cadeynaya laakiin caloosha waa uu ka bukaa marka waa la wajiilo waaye waxaad saaxiib la tahay qof laba wajiilo ah waaye macnaheeda maska marka uu yahay guduudna waxa waaye qatartiisa way yar tahay qatartiisa yar cadaawadiisa waa daciif waaye marka ilaahay isagana waxa subxaanahu wa tacaala hanaga haayo maska loo waxa jiro oo isagana azraq ah ama buluuga ah nooca buluuga ah maskaas isaga naftirkiisa ma shareera laakiin waxay ku tilmaamaan oo ay dhahaan qaraabada waaye qaraabadaada qof ka mid ah oo cadow kugu ah waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nagaga cilmi og laakiin sidaas ay ku macneeyaan marka insha Allah tacaala barnaamijka maanta aan ugu talagalnay dhowrka qof wadaan soo qaadanay inaan u fasirno riyooyinkooda commentiga nagu wadaagay intaas ayaan ku soo koobi doonaa insha Allah tacaala wixii su'aalaha aad weydiin doontaan commentiga nagu soo weydiin doontaan insha Allah tacaala wigi hal mar ayaan jawaabaha soo diri doonaa insha Allah باذن الله باري جل وعلا ها hilmaamin inaad subscribe saarto channelkeena ha hilmaamin inaad like la saarta ha hilmaamin inaad gambalelka furata saaxiibkaaga inaad la shargaraysa barnaamijka ha hilmaamin barakallahu fiikum aad baan idin salaamaya khayr badan intaan barnaamijkan barnaamij xiga aynu ku kulmi doono waa anigoo macallin Muuse idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh